waxaan se khudbadayda maanta ku soo afmeerayaa dardaaran iyo duco kooban oo ku socota golayaasheenna la doortay ilaahay waxaynu ugu mahadnaqaynaa marxaladii muhiimka ahayd aynu soo maray nabad iyo ammaan rabbi inuu inoogu dhameeyo waa fadli alleh falxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu saalixaat ilaahay baynaynu ka baryanaa nicmadaa inuu ina garansiiyo inoona sugo inoona siyaadiyo kuwii garta ee ka garaabay ilaahay ku caabudeen ku caasiina alla inuu inaga yeelo walaalayaal ilaahay waxaan ku weydiisanayaa magacaantiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sare dhammaan dowladda laamaheeda kala duwan iyo golayaasha kala duwan ee la doortay wakiille iyo degaanaba ragga soo baxay kuwii xilkooda garta ee ammaanada ilaaliye dadkooda iyo dalkooda iyo diintoodaba daryeela allaha ka yeelo dhaarta la mariyey iyo kitaabkay qabteen kuwii dhowra ee ku dhaqma ilaahay ha ka yeelo jalla jalaaluh waxaan gaar ugu ducaynayaa golaha deegaanka Hargeysa ee la dhaariyey ee waxa weeyaan maayarkii iyo ku-xigeenkiiba iska soo dhex saaray run ahaantii golaha deegaanka Hargeysa waxa ka muuqata qofkii dheehday dhugta ama u fiirsada siday wax u dhacayeen dad dhalinyaro da'yar ah oo isjecel oo isku kalsoon oo midaysan iyagoon isxagxagan oon isxumayn iyagoon tartan iyo orod badan aan gelin ayaa dhexdooda ay isku garteen Cabdikariin Axmed Mooge inay maayarkii ka dhigtaan ku-xigeenkana Khadar ay ka dhigaan 15 xubnood ee kalena ay garbahoodii la shaqeynaya ay noqdaan sharafta iyo gobonnimadaas lagu dhaariyo isku raaceen wax buuqa iyo xagxagasha toona iyadoo aanay ka dhicin waxaan leeyahay Cabdikariinow gudoomiyaha ama maayarka cusub ee la doorto hadalkaad ummadda kula hadlaysay hadal macaan oo qof walba u soo joogsanayuu ahaa maanta si hadalkii uu dhamaaday ficil macaan baa lagaaga fadhiyaa ummadda kalsoonida ku siisay Cabdikariinow ummadda cadeeda ku taagnayd ummadda aan ku kala hadhin waxbay ka filanayaan oo ka doonayaan waxay ka filanayeen ha ka helaan diintooda u daryeel oo dalkooda u daryeel oo danahooda u daryeel maayarka cusubow madax meel ka sareyso la salaaxa ma jiro maanta waxa tihiin madaxdii iyo mas'uuliyiintii qaranka iyo dalka oo dhan waa hubaal oo waan aaminsanahay idinkuna inaad garanaysaan dhabtana ay tahay maanta cidda matalaysaan inay tahay ummadii Soomaaliland oo dhan qaybaheeda kala duwan oonay qabiil iyo ururtoona ahayn waliba adigu gaar ahaan qabiilnimo kuma baad ololayn ee ummadaas ayaad barnaamijkaaga u soo bandhigto kugu doorto kugu jeclaaday waxaan maayar kugu la dardaarmayaa madaxda waqtigan joogta dadkooda way iska xijaabaan oo lama arko dadkaaga hay iska xijaabin la noolow la dareen noqo la joog iyaga halkay joogaan ugu tag la shaahe oo la cashee jimco walba degmooyinka Hargeysa degmo kamid la tuko waayahooda iyo warkooda warayso hoos ugu dhaadhac dan yarta iyo dadka ducafadeen dadku dareemayn la dareen noqo adu halkay joogaan ugu tag madaxdii hore sidii lagu yaqaanay bedel adugu halkiisa nin walba ugu tag adaa matalaya Cabdikariinow waxaan ku xasuusinayaa حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسقنا في السنن من حديث أبي الدرداء النبي محمد حول صلوات ربي وسلامه عليه ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم وحاول النبي وروحاد يقضون دونتان ويقضي ديدان مركاد ربطان كوين تاك تدرن الضعفاء الدحدود يقضون دونا ويكوا ساليدنكو أرزاقيا أو ليدنكو قرقاريا أحاديث قاركود وحكو صار ورتي بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم كوا مساكين تنعدنا أني دريمين بريدو دي إخلاص كودي دعادو دي عبادة دا أيها بلشدو أي كبد باديسا أو روب كيدين كدايا الله يدين كنا حريصنا يا نبي قدقن كيسو كاسو أها أديقنا قدوميه ما يركع عصبو ضعفة الدحدو ده اللقاهلو كوا ساد متلسا أود مسؤول كتاهي kuwa cabashadoodii codkoogu dad fara badan aanu gaadhin ee laga xijaaban yahay madaxdu laga yaabo inay albaabada ka soo xidhato kuwaasaad adigu matalaysaa ee halkooda ugu tag nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ilaahay waxa uu ku yiri wasbir nafsaka ma'a alladheena yad'uuna rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina واتبع هواه وكان أمره فرطا الله وحوكور جل جلاله وتقدست أسماؤه سوبنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي إساقو أمر سينيه نبي محمد نفتادا وحد كسبر سيسا ود معودا كسقناتا ود أكتودا كدواتا ومرنا آنات كديران كوا هدي هبين بإلهي عابدا يكعب صونيا ما هافرت مال قبين كي تجارتي مقعي ماملك يموقله لا كوا ألا عابدا قلين هريا قلين دنبابي دادكو آني دريمين
kuwa naftaada ku sabirsiya oo ku sugnow oo agtooda joog indhahaagu yay ka tallaabin kuwaas meel kale ha u hanqal taagin haadeecin kuwa qalbigooda dikrigayga aanu moogaysiinay ee aan warba u hayn ee arrinkoodu uu arrin baaba oo dayaca noqday kuwa ha ku dagmin amarkaa nebi moxamed la siiyey sidiisuu u qaatay fuqarada iyo ducafaau lmuslimiin dhexdoodaa laga heli jiro waa kaa leh markaad ii baahataan iyaga dhexdooda iga daydaya haddaba cabdikariinow waxaan kugula dardaarmayaa waa nasiixa iyo tale ilaahay dartii ah oon rajaynaya inay noqoto khaalisatan liwajhi illaahi wa naaficatan licibaadih mid ilaahay dartiina u badhax tiran addoommadiisana wax tarta aan rajaynaya inay noqoto min alqalbi ila alqalbi mid qalbi ka soo go'do qalbiga kalena gasha waxaan ku leeyahay kuwa ducafada ah dhexdooda ha lagaa helo oo yaan lagaa waayin ammaanada aad u ilaali midnimada maanta muuqatay ee lagugu garab taagan yahay waxaad ku dadaashaa inaanay kala furfurmin ood isku hayso waayo gacmo wada jir bay wax ku gooyaan far keligiina fool ma dhaqdo midnimadaa ku fara adayg caqabada wixii kaa hor yimaada u dhabar adaygoo ku sabir ku dadaal waxaad ballan qaadeed u dhaaratay inaad ku dhaqanto lagaa arko ku dadaal xubnaha kale ku-xigeenka iyo xildhibaanada kale garab iyo gaashaan u noqda isgarab taaga wax wada qabta wax qabad iyo ficil fiican u dhaqaaqa isbeddel wanaagsan oo lagu farxa muujiya hadday waddooyinka tahay hadday maraafiqda iyo danaha guud ee ummaddu u baahan tahay hadday da'yartiyo dhallinyarta maanta codka ugu badan aad ka hesheen ee masaalixdoodii iyo wax badan oo danahoogii ay dayacan yihiin ay tahay daryeelkooda ku dadaala yar iyo weyn carruur iyo ciroole madax iyo mijaba qof walba wuxuu mudan yahay kula mucaamalood oo kula dhaqma xasuusta xadiidkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam fa acti kulla dii xaqin xaqah nebigu markuu dardaaran fara badan soo jeediyey ilaahay xaq buu kugu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam xuquuq buu kugu leeyahay naftaadu xaq bay kugu leedahay waalidkaagu xaq buu kugu leeyahay bulshada kala duwan nin walba waxbuu kaa mudan yaho xaqu kugu leeyahay waxaa nebigu ku soo afmeeroo gunaanadkiiyo gebagabadii uu yidhi nin wal oo xaq leh xaqiisa sii nin waloo xaq leh xaqiisu halkiisa ha ku gaadho dulmi iyo dowdarro fara badani ha dhammaato ha baaba'do garsoorka iyo cadaaladda iyo ummadda daryeelkeedu ha muuqdo intaas ayaan golaha deegaanka iyo golayaasha kaleba kula dardaarmayaa madax iyo mijabana kulligeenba waxayna saaran nin walba ammaanadii loo igmaday inuu ilaaliyo unu dayicin oo uu ku dadaalo